Pablo Escobar wuxuu ahaa darooga ganacsadihii ugu weynaa taariikhda, sidoo kalena ahaa kii ugu qanisanaa qolyaha daroogada ka ganacsada. Hantidiisa ayaa gaaraysay xilligaa ilaa $30 bilyan oo u dhiganta maanta ilaa $70 bilyan oo dollar. Waxa uu isbuuc walba ka samayn jiray daroogada lacag kor u dhaafaysa $420 milyan. Waxa uu Mareykanka gelin jiray maalin walba ilaa 15 tan oo darooga ah. Mareykanka ayaa ku baadigoobi jiray lacag malaayiin dollar ah ciddii soo sheegta meel uu joogo ama raadkiisa keento. Sawirku waa asiga iyo wiilkiisa oo hortaagan aqalka Mareykanka xilligaas uu dalxiis u geeyay qoyskiisa Mareykanka, xilli dalkiisa Colombia iyo Mareykankuba ay raadinayeen. Sawirka waxaa ka qaaday xaaskiisa Victoria. Waxaa kaloo la diiwaangeliyay mar asiga iyo qoyskiisaba la ceersanayay oo uu meel kayn ah joogay in gabadhiisu qabow dareentay, dabadeed uu lacag $2 milyan ah uu gubay si gabadhiisu Emmanuela ay dhaxantu kaga yeeraato.